ما عقاشة الله هذا الله ما كم كرفوه يسون الله هذا الله مدحوينه كجولا تلدينه هي كجولا ما أنت تلد عيد كجولا كرامين ولا سود هذا وفق سووا تلينية وفق سووا تلينية ورت الدولة وطني هي أضوب هي كلمية إسكتين ما الدولة حجز ما أنك ساقبتي لو كن يتوانكي أي نقطة الدولة شيعانا إلا جوز شيعان تلقوس سمية ماشي ليها كرادك ما أنت واحد نقطة شيعان كلو لو سمية إلا فين وقال حجز هو سكاه بدون السن iyo habar jeclaa salaadiinta habar jecel waxaan leenahay joojiya jeegaha wala inoo hanjabiya waxaan inaga dhigay waxba iska celin kareen oo kala qaybsan marka xoog leedahay ee lagu qiyaasay lagu qadariyo ayaa nabadda la doona joojiya nabadda raadinaysan taariikh aan u dhisnay iyo wadooyinka u dhisay laascano ayaa saa u daawanaya ay cusbitaaladii kaasiyada la waran xasuuq oo magaalada laga burburiyo على رجع واوين كتير حشوتك يدقن كيني كي دين تاني يكيش يكي دقن كي يكي دين تإسلام كتير أضياش أنا ما أنت وما مضى قاطي يروح ونحي وقال يا سرادي بدنا متيجي يعني عاركيدو حتى أنا أسترين ودي بسه ودي بميكروفونك وأنا يغير كعي وعليه كحشور إلهي كحشور سبحانه وتعالى أرجع ما قبل سنكرت أرجعه ما قبل سنة تبقى قرلوجت ما قبل سنة عينما لا سعانة وتهسيج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مركو إلهي ومع الله سبحانه وتعالى إلهي قاه نمعوين كبلا إن السيئة ما يمحض الله ونو شكر نغيناه وحده انت واحي واريال ما انت وحن شعلينا دور arrimood ka hadlo maadaama ay nagu soo deegan tahay maalin qiimo weyn nagu fadhida marka horeysa waxaan aad iyo aad u hambaleynayaa madaxweyne ku-xigeenkii Somaliland Maxamed Cali iyo raggii ka soo shaqeeyay nabadii eelaf weyn ay nagu rafatay ciidamadii madanigaana qarameeyay laba talaabo aad iyo aad loogu baahnaa ayay ahaayeen waxaa kaloon hambaleynayaa ciidankeena qalabka sida geesiyaasha iyo ciidamada nabadgelyadaba waxaan inagu soo muuqata maalinta berit 18 May oo ahayd in fact inaan u bixino maalintii guusha aynu ka guuleysanay عدوي نعبكي فغش والأكتر مانتا وحلو دبال دقي شاريتو سيديت نقول هذه ناس قال جسوا قوليستي إنك حرية دينا ما أنت قال إن واحد لحية لبعضن كيشون 1960 كبه مركا إنه ما ننتهي حالينه ما هن إن ما نتنا كدينا ويا ما ننتهي جوش اللي هاي نسي فيكتوري دي لحية لبعض كان تونان حوجنو ونقطة معلنتي independence استيتون كماينا أنا قودينا إذا صوب عندك الساعة دونكم معلنتو ده في إيه أيوة صور مقدقان وحين تاي راعة ولا ليال وحلاها المانتا أرتام استيتون كمي قربها يدي بدأ بيجودها وحن شاء الله إنسي مقلهم بالعسن وميل قرا لو تقبطه تبالك دقينا إن لو قبطه سيبوا حن كل هذه دتك دبته تفضيلهم كل شيء ويدان إلى مال ما ننتقي ما عليه إلهي جوش نجسي نعبكي نحسوقي الملك هو السمين ويدان تقرن موضوع السكرتان ما أنت الشعب قالوا ألو سيهي أروتين إلى تشيدلي أي عن كيستان سوما لا نكذب بالدقيقة إلى تشيدلي تذكروا ألو سيهي ما أنت سأنهروا على صنبه وألو سيين لأن قلوب تيني باسكو سوتشي سي الشعب جينا marka waxaan jecelahay in nabadgelyada 18 May qof kasta warta xil iska saaro qof kasta yaanu ku haleen ciidamada nabadgelyada qof kasta oo maanta laga bilaabo waxa tahay ciidankii nabadgelyada ka mid tahay waa inaynu foojignaana waa inaynu
ilaalinaa nabadgelyadeena ay maanta Soomaalida waxba qabsan kara weyday ay maanta doonaysaa inay qasto ilaahay baan inaga joojin doona alxamdulillah ilaahay ayna ka hoos galnay subxaanahu wa ta'ala inta waxa raaca maanta dalkeena dee Muuse wuxuu ka tagay ICU ka tagay intensive care unit uu naga tagay qof ku jira ICU-na in la ilaaliyo oo dawladda loogu dadaalo moojaane in la qaso oo wax la yeelo loo baahna maanta dalkeena iyo ummadeena uma baahna wax qaso uma baahna maanta dalkeena maanta wax mideeya oo shacbiga 34 sanadood nabad ku naaloonayay rajada ku naaloonayay biyaasiinin oo cashuurta bixiya oo cashuurta waxa ka soo aanu jirin aan dawo lagu siinin aan caafimaad lagu siinin aan waxbarasho lagu siinin aan lagu siinin magaalada biyo lagu siinin online lagu siinin intii dawladda bixin jirtay ma bixino laakiin uu inta shacbi bixin jiray in ka badan bixiyaan cashuur aanay qaadi karin way bixiyaan nabadda laakiin haysta wax loo dhigaa aan jirin nabadda ka ciyaarina waxaan leeyahay ragga waaweyn ee ka tagay xishoodkii iyo dhaqankeeni kii diinteeni iyo kii dhaqankeeni iyo kii diinta islaamka uu ka tagay odayaasheena maanta culimada qaatay ay yiri waxaan nahay uqaal iyo salaadiin midna ma tiidin inta meel soo fariistaan inan caarkeedu hatta aanu astureen u dhiibiya mikrofoonka oo reer kala cay waxaan leeyahay ka xishooda ilaahay ka xishooda subxaanahu wa ta'ala mar haddaan sharciga iska dhigna haddaan Soomaaliland nahay waxaan qabiil iyo tamiya ilaahay ka baqa subxaanahu wa ta'ala ilaahay oo dadka masaakiinta ee maalin kasta ka naxinaysa ka joojinaya maanta waddankeena wax aan cay ahayn ka soo bixi mayso asxaabtu way qarsoontay dawladdu way qarsoontay codkoodii waxa qoriya la maqlaa waa ceebteena iyo nimanka sheegtay uqaashiya salaadiinta ninka jilib ka soo jeeda sultaan sheegtay sultaanku waa inuu dowlad jilib u xukumaayo hoos yimaadeen baliyo xukumaya salaadiintii 90kii wixii ka dambeeyay waxaan u aragnay inay fake wax lagu shaqaysto oo Soomaaliland dhibaato u keenay oo qariyay institution building aan dhisnay nation building ummad aan dhisnay qaran dhisnay waxay naga qasiyaan nimankaas dawladda waxaan leenahay wasiirka arrimaha gudaha waxaan leenahay sharci ka soo saar nimankaas salaadiinta sheeganaya غير مسؤولين تاع dadka kicinaya inside marka sameynaya ee sharafteena aysan Soomaal dhan inagu maadsanayso sharci ka soo saar iyaga iyo meediyaha soo daayaba qurankood iyo bulacada soo daynaya waxaan maanta leenahay waa inaynu 34 sano inaga haysanay cid kale inama haysan waliba isaaq bay haysan soo sheegay ilaahu naxariistay maxamed xashan caa'iga oo shalaytana sheegay darada sheegay ana in badan sheegay maxkamad taliyana ee maxkamadda sare xaloo baahaysa in si degdeg la isku yimaado waxayna ummadda qura ee Ingiriis xukuumiyay 80 sano ee juhala wala weyn oo aqoonin xukuumiyay 34 sano ee madaxweynaheena u horeeyay oo dalka ilaahay nasiibkiisa ku xiriyay 9 bilood 17 bari kaba kala baxaynahay oo weyn alxamdulillah maanteenu madaxweyne aan leenahay dalkeena ugu yaalan ee kii labaadna hadana ku furay jabada ka xijisa la baxday dadkaas ee kii saddexaadna aan buurta u galay caare u galay dadkaas dhaqanka hadaynu bedelin oo maantana aan niraha ira kala baxa kabaha dal heli meesuu burburiya dalku u burburiya inagoo saa magaciin loo baabiyay ya ayanu kursiga oo bixiya hawiyo ee wasiir ku xigeenka ra'iisul wasaare ku kala dheereen doona dawladdan garabka laga galo gacmaha is qabsado wixii qaldan tahay sheegto iyo mahadsan la timaada siyaasad cad
وهجوجيسو سومالنا وان لا hadlayna iyo wala Soomaali wax Soomaaliya ma jirto wax Soomaali gabarna ma jirto laba ku yeelayo 10 khasaare inaga soo gaadhay wada hadalkii inaynu ku celino oo rag inaga mid wala ku faanaan laabta garacaan ila anaga la hadlayna la arag wakaas la hadal barwaninka la hadla Xasan Sheekh ila waxana xilma ka Soomaaliya isku bareeriye maanta dalkeena waa loo tashaday Soomaaliya dhan waa tashatay yoolkoodu waxa weeye waa eergaabo Soomaaliya sanaag yayn caruurtooda lagu koriyay loo aan lahayn lagu koriyay xasuuqeeni ma caruurteena u sheegi weynay oo ka xishoonay aan sheegno oo adduunka lagu dhigta oo inaga leeyahay maanta waxa xasuuqay ku ina xasuuq wala maanta waan xasuuqay taariikh aan u dhisnay iyo wadooyinka u dhisay laas aano ayaa saa u daawanaya ay cusbitaaladii kaasiyada leeyahay wala xasuuq oo magaalada laga burburiyay dadka maanta aanu beesha aan walaalanahay ma aflagaadeen ma ilaahay ku hadda maanta gacanta ku haya ee hoos galay ilaahay baa ku dhaariyay fiqi on gaalka ay tageen waqooyiga tagi kareen oo gurigiis aan habeen qura seexna kalba habeen meel seexda nabadgelyada raan kalkule maanta fiqa ay caawinayo Soomaaliya sana gal qabanaya waxaan kule ummadaas ku ciyaareen fadhiyo waa kuwii ku xasuuqay ninka habeen sayidi waxaan bal dhulbaantay gaalbad ka dhulbaantay mooday dilay maantana kuma ogola anaga la dooniya reeshaas baadiya hawiye dooniya laakiin ma doonino hawidanteenu kuma jirto in Soomaaliya dadkan ku dhaqan ka ahaan in dhaqan kale dhaqan ka nahay ee sodada kufsanaya ee martida diliya ee dhulka boobiya ee xawaala qodanaya ee maxaan cunaa wax kale aqoonin qaladkan u geynay muku celimayno dadkiina hooga u bilaabina eergaab ma qabsan kartay eergaabo ما قبسن تب قرلوجد ما قبسن سعينما لاس عانو هسيج لاس عانو هسيج دول كوين وضلنا هاي بالبلاد ليه هاي إرجاع ليه هاي هرجيسات ليه هاي إلهي بيسكن تستعلم هاي جوجي بانه جوجي أنت كنت جوجي عيبت وحنا هاي بقول ما أنت لا لقاونا بدي مشرتو maanta waxa weeye walaana dalacsaday walaano hanjabiya waxaan naga dhigay waxba iska celin kareen oo kala qaybsan marka xoog leedahay ee lagu qiyaas lagu qadariyo ayaa nabad la doona joojiya nabad raadinaysan lacag iyo baad been nabad lagu helo ixtiraam iyo xoog laga baqay ayaa laga helaa bas oo stress bagaalo tala ayaa nabad lagu doona على هاي نبض محمى لكن لما ربما ما أنت وقت جيد ما تشوفته شينا يسكو هالينيان إسماعيل عمر جيلي يسكو هالينيان قدر بيسكو هالينيان فقه بيسكو هالينيان أنتوا حول سينسا وإن نقول أينو تتكلم مدينة إنه قودين هو من المدينة إنه قدوة هو حق أن كنت هاجن هاي إنه ولا بتين ولا أحسن المنافق أنت أي لابتين وين waxaan soo jeedinaa markaa inaynu dalkeena iyo dadkeena aynu ka daynaa aflagaadada iyo ceebta hablaha wax leena xishooda hablaheena waa xishooni jireen mikrofoon ma qaadani jirin ka daaya mikrofoonka hablaha ilaahay ka boqo ka daaleey madaxweynaha siyaasadda la kaalay tu arrimood la kaalay tu difaac la kaalay tu daaqil la kaalay tu nabadgelyo la kaalay بلاتفورم وحياة دول سيستم كانوا مدحويني هذا لها سوية ثلاثة كينتين بلاتفورم كاغا أي كل شقية وسيرة هذا معها وحية وكانان سياسة هذه أريمات دي بدأ كان هذا الدفاع كان أنا وكل قرب تاجن أدوك حقلي يان الله هذا الله ما عاشا الله هذا الله ما كان بيقرفوا يسون الله هذا الله مدحوينه يكجودا تلدينه يكجودا ما أنت تلذ عيد كقطع الغرامين ولا سود هذا وفق سود تلينيا وفق سود تلينيا تذكرنا على وحش الشهداء على إسعاوية أيها لنا هاي شارك على هالأوجادو أيها لنا هاي إلهي كبقى نمعد إلهي نسيي أي نقول شكر نقول المحبة قدرنا محبة استعال قدرنا تاسع وقت سكات كان معي عندك كل بدلو
dhaqanka hore aan bedelo wixii dowladda ku qoonsanay albaabkan ku garaacnaa siyaasaya taasi madaxkiisana ka jooji tan hagaag aan niraaho haddii maalin ma niraaho reerka madaxweynaha ka soo jeedaan horta dowladdu waa dowlad wadani iyo udub iyo kulmiyo isku tagay ma dowlad garxis dadkana waa dowlad garxis waa qalad haddii dowladaha reer siino hadda waxa cabanin ha dhowto waxa haddii dowladda marka dadku reerkooda ka dhigto ha cabanin dowladdu asxaab bay ahaan jirtay riyaal markuu joogay waxa la oran jiray waa dowladda udub magaciisa joogay waxa la oran jiray waa dowladii udub maalinkii ay soo qabtay 2010kii ay noqotay dowlad jeegana ee lagu sameeyay meesha la yaa gar adag maantana waxay noqotay jeegan kale oo lagu sameeyay elaf weyn oo garxis hoose ka habdoonaysan iyo habar jala hala joojiyo jeegan taleenays salaadiin habar jala waxaan leenahay joojiyo jeegan joojiyo jeegan Soomaali wax u baahan tahay wax mideeya wax faraarayeen uma baahna wax mideeya u baahan oo cadow ka celiya oo caruurtooda mustaqbal siiya oo dowladnimo dhisa oo institution isa u baahanti kolba laba reer inay yiraahdaan waan reer kale waxay qabanayna hal geed kale u gaari maayo ma geedkaas inuu gaane Cabdiraxmaan Tuur baynu qabanay ma cigaal baynu qabanay ma geedkaas inuu gaari ma waxaan qabanay bahalka musabbiix ma geedkaas inuu gaari ma siiraayin geedka ku gaari كداية شركة كتشوشية عن هناك شقينا اسكو ديركا فيش صحة كتشوشية عليه الصلاة دين تعبر شعري أنا ورنتا شيئا تشوشية لله ولا يوحى الله يعي وأبعد قديها سومالي دور دي ما جرتو انت ازاي سومالي بابي هرتبي بابا ايان بين الله كريم إنك هاي هنكو هكاچين دونا انت هاي كان اسكوي هنو أيانو كلا صاري دونا وإنه قرن دونا إسكت هاي دورة قبلة دو فاملي باتين قويس باتيني تي وحشقين ويدي توبيي من إنسان سمايستا إسا سامح اسمه سامحين سيسكو توحين waxa qoray ku heshiiyeen Soomaaliland baabino wax kale ka dhaxeeyo heshiis leeyahay kama jiro wala reere meesha uu ku ciyaaray daaroodkii hawiya harooxintii u badan meesha wala ka saaray marka waxa leenahay waa ayaal dalkeena alaysta qofkii maanta tuulo Soomaaliyeed hagaajiyay dadka waxa la matakiyo Soomaaliyeed hagaajiyay la mid tahay waxa leenahay hada xishoodo dadka Soomaaliyeed laga xishoodo Soomaalida ayaa maanta Afrika ugu xun taa ka fakara Abduwale waxaan ku leeyahay الدولة قاسو سواء ما عنده حيالي كرميسه دولة دي قابو